waxaa gelinkii dambe ee shalay magaalada Kismaayo lagu qabtay xafladda qalinjabinta mashruuca dalbile oo ay wasaaradda dhalinyarada Jubbaland ku maalgelisay 13 hal abuur ganacsi oo ku soo baxay tartan loo sameeyay tiro ganacsiyo yaryar ah. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Jubbaland mudane Axmed Faarax Cali Awees oo goobjoog ka ahaa iyo mas'uuliyiintii kale ee lagu casumay ayaa hadallo kooban ka jeediyay goobta. xaqiiqatan waa dhiirigelin dhalinyarada la dhiirigeliyo ay wax soo saar sameeyaan wax badanna ay maxaa ka qayb qaadanaysaa nabadda iyo jiritaanka dhalinyarada iyo inay hal abuur la yimaadaan qofka markii lacag siiyo duu aragti la yimaado. intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa qoladan mashruuca dalbilowda oo Irishna ay fulinayso unit bayna ay lacagta iyaduna ay bixinayso. waxaan isleeyahay mashruucan inuu noqon doono mid guuleysta dabcan waa laga soo sheekeeyey. waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo halkan lagu guddoonsiinayo dhalinyaradan bilowga baraka aan baxshay bilow barako aan baxshay. arrintaas horteeda iyo gadaasheedaba wanaageeda iyo ammaankeeda fi dunya wal aakhira wax iska leh sacdiyo way u soo halgantay meel aysan u tagin male rafaad badan bay u martay ilaahayna waa ku guuleeyay haddana wax ka badan baan ka sugaynaa insha Allah. marka waan u mahadcelinayaa iyadana alxamdulillah maanta wuxuu u taagan yahay meeshii u dambeysay. intaas waxaa qaylinayay oo daba joogay sacdiyo iyo annaga oo wasaaradda ah 3 meelood 3 state buu ka socdaa. intaasoo jeer baan xamar u tagnay intaasoo jeer baan ka doornay in la soo dedejiyo sadabkii maxaa loo haystaa meey. alxamdulillah waa lagu guuleystay maanta ayaan horteena ku bixin doonaa haddii ilaahayna. runtii kulankan hadal badan kama furno waa dhiirigelin in lagu dhiirigeliyo arday dadkii la yimid entrepreneurship ama hal abuurnimada la yimid. annaga ka degmo ahaan ka arrimo bulsho ahaan ka Kismaayo ahaan waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay. runtii degmadu way idinla shaqeyn doontaa way idinkala qayb qaadan doontaa wax kasta oo la sameynayo activities ah. aniga gudoomiye Farweyne iyo tiimka kale oo nala joogo waxaan kala discuss gareyn doonaa waan kala hadli doonaa in alaal inta dhiman shatiyada in si free ah lagu sii hadii Ilaahay yiraahdo taasna hortiina waan inaan kaga ballan qaado. dhanka kale Sacdiye Xuseen Dhalahow oo ku hadlaysay afka fuliyaasha mashruucan oo ay ugu horeeyaan UNFPA Iris Hub iyo deeq-bixiyayaasha ku lamaanan ayaa ka sheekaysay marxaladihii laga soo maray. dalbile waa mashruuc uu bixiyo ama qayb lixaad leh oo qayb ka branch hay'adda Iris Hub oo ay fangareyso UNFPA ay fankeeda ay leedahay Iris implementationka ay leedahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad goboleedka Jubbaland. marka intaas laga soo tago dalbile waxaa ka faa'iideystay dhalinyaro iskugu jiraan gabdho iyo wiilal qaybaheeda kale to bulshadana ka kala imaaday haddii ay noqon lahayd IDPS hadday noqon lahayd host community returneeski special needs ka dhalinyarada ahaa iyagana iyo intii kale to nasiib u yeelan kartay. trainingka dalbile waxaa soo bilaabnay dhamaadkii February ilaa iyo Marso oo kiisii ugu horeeyay oo bootcampka aan qabanay oo 5 bari ahaa kaasoo aan u qabanay ilaa 80 dhalinyaro ah. 80kaas dhalinyarada ahaana markii aan soo xuleynay waxaan ku soo xulnay qaab online ah ilaa iyo 200 soo codsatay. 80kaas aytaan ka soo xulnay oo aan isdheheynay waxay buuxiyeen criteria-da waayo criteria-da xitaa waxaa ku jiray age sada ku jiray dad waaweyn oo badan soo codsadeen oo qayb ka ahaa. markii halkaas laga soo tago oo seminaarkaas 5 bari ah aan qabanay oo bootcampka ahaa waxaa kale oo sameynay asagana bootcampka intuu socday kullamaana training kale oo asagana ICT ahaa oo computer skills dhalinyarada ay ku baranayeen. markii intaas ay noo dhamaatay dhalinyarada waxaa u sameynay inay soo qortaan kambaniyo oo fikradaha la abuuray la imaadaan
fikradii hal abuuradii ay la yimaadeen iyo processyadii seminaarka lagu baray qaabkay u mareen baa waxaan ku sameynay inaan tartan gelino interview aan ka qaadno interviewga anigoo Kismaayo idin la joogo aad intaqaaneen in kama qaadeen waa xasuusataan UNFPA iyo IRAS qaybeeda Muqdisho oo donors-ka ahaa iyo wasaaradda markaa agaasime saacid uu nagala joogay oo markaa actin uu ahaa baa noo qaaday interviewgaas waxaa ku soo guuleysatay qaybo kamid ah dhalinyaradii aan tababarnay kadib interviewgii guuleystayaasha oo 10 company waqti xaadirkaas ahaa waxaan u qabanay training 2 bilood soconayay oo mentorship skills ahaa oo dhalinyaradii habkii ay u dhisi lahaayeen mentorkooda oo businessyadooda sidee u raangareyn lahaayeen business proposalkooda sidee u qori lahaayeen cidda ay la kaashan lahaayeen meel walba iyo fursad walba ay la sii aadi lahaayeen crowdfunding sidee u sameyn lahaayeen dhammaan waxaas markaan barnay oo muddo 2 bilood nagu qaadatay kadib waxaan u sameynay dhalinyaradii inaan u dirno inay soo sameystaan shaqtiyadii akoonadii iyo processki dheeraa maanta halkaan uu nala soo gaaray 10 company kadib 3 company ayagana waxba aan ogeeno baa dhacday in dib aan u soo wacno aan processki ayagana aan u marino maantana dhalinyarada la fadhiso oo la qaadanayso startup awards-ka meesha seetana tiradeeda waxay ku dhan tahay 13 startup oo company oo dhalinyarada group iyo shakhsi koox ay kala yihiin waxaa sidoo kale dheer intaaseeto dhalinyaro ayagana institution ah oo fikiraha la abuuro ayagana wanaagsan oo dadka ay ku sii caawin karaan sameeyeen waaxda social enterprise kan ayagana lagu caawinayo oo awaal lagu siinaayay tartan dheer ay soo galeen ayagana team kale taa ku guuleysteen social enterprise kaasna asagana waxaa waaye $10,000 dhalinyaradaas marka maanta startup iyo social enterprise ki oo min $2,000 oo 13 group iyo waxa faa'iidada award ka heli doono institute-ka oo ayagana heli social enterprise ko 10,000 heli doono insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka lacagaha la siiyo inay ku shaqeyn doonaan sidii balanti ahayd annaga IRAS ahaana waxaan insha Allah balan qaadi doonaa ku dadaali doonaa inaan dabagal sameeyno ilaa maalinka u dambeeyo gabagabadii meheradihii maalgelinta ganacsi helay ayaa midkiiba lagu wareejiyay lacag dhan $2,000 Mareykanka ah intaasi kadibna qaar kamid ah ayaa dareenkooda muuqbaahiyaha uga waramay runtii waxay aad farxad gaar ah maadaama fikirkii aan lahayn nagula maalgeliyay oo hal abuurkeena in dhaqaale nagula siiyay waxaa noqon doona company jaan qaado mustaqbal hiigsanayo rajaynayo insha Allah inuu xarumo badan magaalada ka furo dareenkaygana maanta lama qiyaasi karo aniga hiigsigeyga mar walba waxaan jeclaa in aan noqdo qof ganacsado oo shakhsigiisa u ganacsado kana banaan dad inuu u shaqeeyo rabo oo qof rabo in aan ganacsigeyga horumariyo aadaan u jeclahay wax iga caawiyo ayaan laasanaa waxaana jaaniskaas ii siisay dalbilena aadaan ugu mahad celinayaa Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga ah ee Home Cable Kismaayo.